وعبشتنا لسه عمنا دولة نمدا لما قفود مركب عسجاران قف بوليسين وحنا الرباع قف مركب قف حوليس قات محكمة وحيلة ده حلاقة قاضي دول إسلامية الدولة مركب الدقيقة أو صدق سنة قف كون والله مثلا تصالح ولذا ورول كان على قرحنا سيدان ما هو هنا ودوينها حلاقة بحشر الله وحي بوليس كسر أمانة ولا ليه شغال قدام بيسال قبته تاسا كينيس مرة بدنا بوليس كلا عبت مركب وحي نظام دولي أو ورقة له أو لوجي هاي أو شروع له أو اللوجي هو عن قرصانين وواحد يقانو عن قرصانين اللوجي لكن دنبيده عن لوجي لو كانوا حال ربع إلا لا برر الله وحنا جرا كاسا جرا عد مركب لور شيء جاي عد مركب عاد كأجمع مريسان مجرته قف شرع الدراء وموادن إلا ظلمية قف موادن كا أو سومالي كا هدي هنتدي سلوي ما هدي ويرا هنتدي شخص سلوي ما إنه قوم ما كرت هنتدي شخص وحر وإنه محكمة هذا ودعوه هدو دول الدولة دقنا وحال ربع إنه دورنا وقصوا معاشه نوضع الله يروح يسكتوا لكن معناه إذا ما أنا نتميدي استاجوا وأسكرت البوليس كلا درنا ومعناه لا جارة يا مجرته إنك سو هذا أي بس جواب ستاهي لكن ماش وجدنا أو سعدا وحيد هاي بوليس كوحكسوا أمانة هاي مشاكيشة دورك وجروا أمانك جدها وحاوية ضدك أنت حن إنه كقبت صار أركتين منك الشيخ بوليس ما أركان أنت بدل سما ما أركتين إنك علماء الحراي دقاتير ما أركتين إلا محير ما هني قبلها وناكسنا ما أركتين هو وناكسنا أو علماء أو دورسون أو ما أركتين مدارس دين تكبر ما أركتين ما يا dadka inta xunay lama caamilaan xirayaan midka qabyaalada ka shaqeynaya midka dadka isku diraya midka hanti u salahayn muwaadinka leeyahay degan midka maaragtay muxuu ahaa qawaarijka oo shacabka Soomaaliyeed inuu dilo raba midka raba in habraaci amni ee la dajiyay ee qarax magaalada lagu joojiyo raba inuu gees maro ee uu raba inuu qarax geysto raba waxa saal raba in la qabto dadku waan la eedeynaa laakiin eedda waxa loo yahay meesheedii la joogaa wasaaradda warfaafintana lama joogo wasaaradda gargaarkana ma joogaa booliiska wuxuu joogaa hay'adaha amniga hooyadoodii waaye waa booliiska wuxuu ka shaqeeyaa sharciga iyo kala dambeynta iyo nidaamka intaas kadib waxaa marka dardaaranka ay la dheeraadeen waxay hay'adaha ammaanku qaldaanna waxaa la rabaa idinkoo ah ka turjumaya bulshadii bacdama aad tihiin meesha isku xirta bulshada iyo booliiska inaad hoos soo gudbisaan si hoos inaa soo gudbisaan haddii waxa laga qaban waayo ilaa aan soo gaarsiisaan anaga gaarsiisaan taliyaasha gaarsiisaan taliyihiin soo dirtaan noo soo dirtaan guruba ku jirnaa laftirkiisa soo dhigtaan si bulshadii loogu adeego wax badan oo weyn oo qalada aan u qabanno oo waxa leeno xalkeeda gaarno intaas waxa dheer shaqa adaga soo qabateen niyeysta inama al-a'malu bin-niyyat inaad waxaan ilaahay ugu dhawaanaysaan oo aad ajir ka helaysaan oo aad diintiina iyo dalkiina iyo dadkiina difaacanaysaan ahaanteed u niyeysta shaqada aad qabanaysaan amaalkiina dunidana waa ku helaysaan aakhirana waa ku helaysaan insha Allah ta'ala laakiin waxa la rabaa inaad niyad u niyeysataan waxa aad qabanaysaan inaad dalkiina iyo dadkiina inaad u qabanaysaan dad Soomaaliyeed oo dalkooda iyo dadkooda ka shaqeeya inaad tihiin inagu waan ku faanaynaa waxa ka mid tihiin dadka ammaanka caasimadan ay gaartay ka soo shaqeeyay oo 3 sano la soo dhaafay nala shaqeynayay xogta keenayay shaqo qabanayay na garab istaagay intaba inaad tihiin ujeedadiina marka ma qarsoonidiin haddaad tihiin community policing xuduud qarsoon maahan shacabka Soomaaliyeedna waan u sheegaynaa oo si dheeran ugu sheegaynaa oo dad shacaba oo isxilqaamay oo ka shaqeeya amnigiina ayaa jira marka hurdaysaan oo aan mushaar ku qaadan oo xoolo ku qaadan oo waxba ka helin ilaa inay nabad galaan dadkoodana inay nabad galaan ubadkoodana nabad galaan dariskooda inay nabad galaan maahan waxaan haynin ka faa'iideysan jirin laakiin askariga mushaar u qaata Soomaa idinku mushaar ma qaadatiin waxaan ahayn inaad ammaan heshaan kama shaqaysiin taas waxay keenaysaa inaan shacabka Soomaaliyeedna dad badan oo intaas la mid ah oo sababaan ahayn in ammaanka dalkan iyo caasimadan iyo dalkan inuu ammaan noqdo aan ahayn aan u shaqeynayna inay jiraan shacabka u sheegaynaa maalin maalmaha kamidana ma ahan inaan halkaan joogayno inaan inta isku imaanayna meel ka baxsan isku imaan doonaa shaqada adag aan qabateenna waa la inkaga mahad celinaa waxaan leenahay guuleysta halka shaqadiina ka sii wada
hal qof oo muwaadino oo Soomaaliya oo la dhibaateynayo oo aad soo gudbisaan cidii doonta ha dhibaateyso qofka muwaadinka oo Soomaaliga qofkii dhibaateynayo oo si dulmi u geysanaya qofka uu doonaba ahaadee waa dhib taabanaya qofka damiirkiisa maskaxdiisa iyo jismigiisa intaba taabanaya inaad soo gudbisaan oo nagala shaqeysaan rajaynaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay quluubteena dhammaanteen na geliyo dad u jeeda inay dalkooda dadkooda samata bixiyaan saa la socotaan adduunka ma jirto dad iyo dal qofku dhisaya ma jiro gacmaheena waxaan ku qabsano ammaanka inaan gacmaheena uga shaqeysano maahan cid noo dhisaysaa ma jirto bulshada iyo akhlaaqda bulshada iyo akhlaaqiyaadka dadka inaan annagu ilaashano qofka waanna maahane qof noo ilaalinaya ma jiro waxaan la ka rabaa qofka xun inaan iska qabanno waxaa ka mid ah dadka bulshada dhibka ugu weyn oo jiro waxaa waaye dalkii dadka ugu xumaaya la dhegaysana idinku ma aragteen kuwa ugu akhlaaqda xun oo dadka caaya oo qabyaalada ka warrama oo dadka kala dira oo dadka dhegaysta ugu ixtiraam badan maanta oo la dhegaysana oo la difaaca oo loo soo istaaga oo la karaamayna waa qof dhan oo inta meel istaaga ama dawladnimo caamaya ama qabaa'il Soomaalida kamida qayb kamida inuu caaya raba ayaa markii la soo xiro la difaaco leeyahay hebel saaro ahaa kaasoo ahaa kanoo ahaa kaasoo yahay waa waxa Soomaaliya halkaan geeyay waxaan rabaa dadka inaad hadda u turayso walaalkaa yahay inaad dhiirigeliso intaan la xirin koor aad tiraad waxaan waa qalad ay kugu yihiin waxaan dambiye kugu yihiin diinta uma fiicna dalka uma fiicna ka joog inaad tiraad marka waxa la ka rabaa akhlaaqda bulshada inaad ka shaqeysaan waxa kamid ah qof taatu ku sawiran yahay oo tadka la soo bandhigo isu soo bandhigay dada imaanaya waa fiirsanayaan hotel la geynaa taatuga dhaqankii Soomaaliga diinteena ma qabto dhaqankeena ma qabo Soomaalinimada meel uga jirtay ma jirto wali qariib ay la tahay in la dhaho qof meeshaana Muqdisho qof taatu ku sawiran in inta bulsho Soomaaliyeed timaado inay daawadaan gabar labisan oo la rabo gurigeeda inay joogto oo ama guriga hooyadeed ama guriga guriga hooyadeedii aabeed ama guriga xaajigeeda inay joogto la rabi ama guriga walaalkeed oo mar walba inay inta tagto ayadana sidoo kaleeto masraxa inta tagto ayadoo lagu weynaysan la arko arintaasna waxyaabaha la rabo waa inaad bulshada ka wacyi gelisaan inaad u sheegtaan inaad ka waanisaan dadka hoteelada iyo waxaas lana waxaan leenahay ganacsigiina wax kale oo aad faa'iido uga heshaan aad jirtee aroosadiina ku dhigtee lainkama ogolaanayo inaad ku samaysaan wax dadkii dhaqankooda iyo dalkooda iyo dadkooda fasahaadinaya ganacsi kale ka samaysta hadda intaa ka badan sii wadaana waa laynkugu imaan doonaa insha allahu tacaala marka akhlaaqda dadka qayinkooda diintooda sidaad u ilaalinaysaan ammaanka kaliya akhlaaqiyaadkooda ilaalsha dadka iyo ammaanka maskaxdooda ilaalsha dadka waxay ku soo korayaan iyo lagu abaabinayana ka ilaaliya intaas waxaa ayadana muhiim rabaa inaan idiin sheego dalkii doorashadii soo dhacday door weyn aad ka qaadateen dadku idinma oga laakiin waan u sheegnay madax iyo majaba waxaan u sheegnay inaad doorashadii dheereed doorashadii taariikhi ay ahayd isdiiwaangelintii ilaa ay maalintii ugu dambeysay 25 December inaad qayb weyn ka qaateen oo amnigeeda nagala shaqeyseen maalmaha in ka midna dadkiina kumida dalkan iyo dadkaana waa la xusi doonaa shahaadooyinna waa la sii doonaa taariikhiya waa la xusi doonaa bagana waa la ka ogsoon yahay aakhirana ajir iyo xasanaad xisaabsada waa maasantiin waxaan Allah ka rajaynayaa inagoo nabad qabno oo baraara inaan wada shaqeyno intaas waxa dheer taliyaha hoggaanka cusubna si fiican ula shaqeeyo